daawade haddii aad ku cusub tahay channelka Ilays News fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada xaqiiqada ku salaysan ee aanu sida joogtada halkan idinkula wadaagayno ballanteenu waa Ilays News. xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa uu sharci darro ku tilmaamay warqad shalay ka soo baxday wasaaradda warfaafinta Somaliland oo ay xukuumaddu ganaax lacageed u dhigtay telefishinada Universal TV iyo Star. xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdilaahi Geeljire oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in go'aanka shalay ka soo baxay wasaaradda warfaafintu aanu ahayn mid meel laba kaga qoran sharciga dalka u yaala taas oo ugu baaqay wasiirka warfaafinta in uu arintaasi ka laabto. sidoo kale xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa uu xukuumadda ugu baaqay in ay xabsiga ka sii deyso mulkiilaha telefishinka Astaan haddii ay jirto dambi u galayna ay maxkamad saarto. gabagabadii Cabdilaahi Geeljire ayaa waxa uu farta ku fiiqay mansab uu sheegay in ay xilkii dawladnimo ku soo biirtay taasi oo ilaa hadda aan la garanayn cidda uu yahay iyo waxa ay tahay. isagoo arrimahani ka hadlayna waxa uu yidhi waxaan maanta halkan doonayaa kaga hadlo arrinta ku saabsan labada TV ee wasaaradda warfaafintu ka soo saartay go'aanka shalayto labada TV oo kala ah Star TV iyo Universal waxaynu ogeyn labada TV in laga joojiyay wasaaraddu ka joojisay shaqadii ay ka hayeen warbaahinta Soomaaliland. waxa jirtay in la isweydiinayay waxa looga joojiyay waxay ahaayeen waxaynu filaynay marka maxkamad la geeyo inaynu ogaano sababta looga joojiyay shaqada waxay tahay go'aan laga gaadho. waxaan xan ahayn kamaynaan maqal waxa looga joojiyay. waxa aynu ogeyn inay dacwad gudbisay ururka ama uu gudbiyey ururka Soldier ee ururka saxafiyiinta ururada saxafiyiinta mid ka mid ah oo ay maxkamadda sare u gudbiyeen. waxaynu ogaanay in maxkamaddii sare nasiib darro ay dib ugu celisay wasaaraddii ay ka soo dacwoonayeen ay yidhaahdeen iyagii dib ugu noqdo oo runtii aynaan fahmin qof ama hay-ad ka dacwoonaysa oo la yidhaa iyadii ku noqo halkii looga garqaadi lahaa ama go'aan kaloo madax bannaan laga gaari lahaa iyadii lagu celiyay. innagoo intaasoo dhan isweydiinayna ayaa waxaa soo baxay go'aan wasaaraddii ka soo baxay shalayto oo ah ganaax $20,000 in labadii TV la saaro oo ku salaysan wada tashi aqoon-yahan iyo kulan wasaaradda gudaheeda iyo go'aankii maxkamadda ee ahaa wasaaraddii ka cabanaysay ku noqda saddexdaa qodob ku salaysan. waxaa kaloo go'aanka ku jiray inay u soo diyaargaroobaan labada TV heshiis cusub oo ay la galaan wasaaradda iyadoo kii hore wax ku dhacay iyo liisinka hore wax ku dhacay aan la sheegin wayna weli ka fahansaneen waxa loo kasalgariyay. arrintu markay sidaa tahay marka ugu horeysa arrintaasi waa arrin noogu muuqata inay qaldan tahay waana arrin cadaalad darro u muuqanaysa haddaanay ahaynba u muuqanaysa cadaalad darro. waxaa laga hadlayaana ma aha arrin siyaasadeed ma aha arrin meel hoose laga eegi karo. arrinkana waa arrin ku fadhiya oo saameyn ku yeelanaya dawladnimadeena
وأنا سامين كوي أنا يد النبذينا وأنا سامين كوي أنا يا دينته وهي عدالة بكتشرته وسارد وين وجني وإذا لو ما هيستو معمولك لو ما هيستيني هكتو لو ما هيستيني قرنك مسؤول وقتها هنا كير على سوحي هديمة لكن واحد حق له يقول لي إنه يموتشسو أو يعضيسو ضدك أي مسؤول وقتها وعضيسو شقة قبانيسو يعدي وحكسو أوجيسو وحيصوت طيب سين حقه وجانو وهي حق يجونا ويباهين إن لو تاجروا dadka loo adeegayana way u baahan yihiin in xaq la mariyo sidaasay hore ugu maraysaa dawladnimadeenu sidaasay saameyn u yeelanaysaa dawladnimadeenu haddii maalinba qofka kursiga fadhiya uu adeegsado dareenkiisa dadka uu adeegayo waxay noqonaysaa saameyn taban bay ku yeelanaysaa qarannimada waxaa kaloo jirta waxa marnaba aan meel lagu soo qaadin xeerarka loo cuskanayo ganaaxyada xeerarka loo cuskanayo in kii hore la kasalgareeyay heshiiskii hore ama liisankii hore xeerarka muujinaya in dollar la isku ganaaxo inagoo ganaaxyadeena aynu ognahay dee aynu leenahay lacag Somaliland la yidhaahdo oo ay xukuumaddu ku dhaqanto waxaas oo dhan xeerarka loo cuskanayana lama sheegin sidaa daraadeed arrintu way ka badan tahay cambaarayn waxaynu u baranay arrintaa waanu cambaaraynaynaa iyo dabeedna in la iska ilaabo arrintu cambaarayn maaha arrintu waxa weeye arrin qallooc gelaya dawladnimadeena وقلوع قلية وضع شقين تهيدها ذل كلية أما قارها الله هذا أما أجنبي هلا هذا أما حكومته هلا هذا قلوع قلية وي قلوع عيال صدق لنا ضند ويتابنيان شرعي ويتابنيان وحي حمينيان شوي قالوا وضع شقيه أما وضلك هروق مرو marka ma aha in arrin loo eego arrintaas way qaldanayd waanu cambaaraynay dabeedna waanu ka xunahay ma arrintaas waxa ay u baahan tahay dadka aynu xukuumadda inoo shaqeynaysa aynu dooranay waajibkeedu waxa weeye inay wax noo hagaajiso waajibkeedu waxa weeye wixii aynu fahmi weynay ee gacanta ku haysan inay noo sharaxdo ma aha inay dushayadu ay waxay doonto ka samayso بريها waxay nagu soo kordhay oo dawladnimadeena ku soo kordhay waxa la yiraahdaa meel sare laga haystaa meesha sare dad weydiiso atiraama madaxtooyada lagu sheegi maayo maaha ma xafiis aynaan garanaynba ma dad meel fadhiyo aynaan garanaynba meesha sare laga haystaa waxay tahay ama dad la xiray xafiiska tiknoolajiyada anigu okay way arrinteedu laakiin meel sare laga haystaa meesha sare ay nagu soo kordhay meesha sarena inama anfacdo waxaynu u baahanahay inaynu kuwa meel sare joogana aynaan dulmin oo iyagoon waxba ogeyn inaan ogeyn baa laga yaabaa kuwa meesha sare la sheegaya taana loo tilmaami maayo waa dhaqan cusub oo inagu soo baxay dad baa xidhan cid xidhay baa la garan waayay waxay u xidhan yihiin baa la garan waayay waxa kamid ah TV-ga astaan iranka mulkiilaha ka ah horey u soo dhacday ma diidanin in qofkii sharci lagu haysto oo sharcigu cadi de waxay dawladdu u leeyahay inay sharciga dadka mariso xadhiga iyo jeelka waxa loo sameeyay in qofkii sharciga jabiye la geeyo laakiin haday dawladnimadu noqoto wax kale oo aan wixii ahayn soo dhex galaan oo meel sare la yiraayo dad baa waxa baabuli
dad baa ka dambeeyay waxaynaan garanayn ay xafiisyada dawladda soo galaan way naga qaloocanaysaa dawladnimadu waana naga xumaanaysaa inaynu jiifiyada iska cambaarayno oo aynu iska sheegnaan waxba ka tari mayso waxba taasi ka tari mayso waxaanu halkan u soo jeedinaynaa wasiirka warfaafinta Saleebaan Yuusuf Cali Koore waxaan leeyahay wasiir waraaqda ka soo baxday wasaaradda ee uu saxeexay agaasimaha guud shalayto warqad ummadda qancinaysa maaha warqad sharciyadeeda la fahansiiyay maaha markii ugu horeysay dad aan magacawnayn oo aqoonyahan la yiraahdo intay shireen cid ganaaxeen 20 kun ayay noqonaysaa si aynu u raacna garan mayno waxaanu leenahay labada TV haddii wax lagu haysto cad xaq baad u leedahay inaad ku soo taagto maxkamad gee maxkamado xukun waxay maxkamadda cadaaladda ka helaan bay leeyihiin system bay leeyahay abiil lagu qaato hadii toose ay cadaalad darro ka tirsadaan ama xeerkoo la qalday ka tirsadaan inay kuwa kale u gudbaan bay leeyihiin haddii qarannimada wax yeeleen taasay leeyihiin in la mariyo iyana isku difaacaan laakiin aqoonyaha shiray aan magacawnayn wasaarad shirtay oo magacawnayn maxkamad qofkii ka dacwoonayay tiraa halkii aad ka dacwoonaysay ku noqo intaasba in aynu ku qancayno maaha wasiir waxaanu kaa codsanaynaa inaad warqadda kansal garayso oo arrintaana dib ugu noqoto labada TV-na aad cadaaladooda ay mudan yihiin mariso ayaanu halkan kaaga soo jeedinaynaa xukuumaddana guud ahaan waxaan u soo jeedinaynaa inay fahmaan marka ugu horeysa inay waddankan dadkii doortay iyo dadkii aqbalay oo ummadda reer Somaliland ay u shaqeynayaan inay shaqaale u yihiin inay waajibka leeyihiin dadkuna ay leeyihiin waajibka inay dawladda iyo sharciga adeecaan labada waajib baa kala jira inaanay u qaadan xafiisyada ayaamaha ay joogaan inay dareenkooda ku maamulaan ee ay inay sharci ku maamulaan ayaa loo baahan yahay waxaynu dhisaynaa waa waddan curdina oo la ictiraafsanayn ku dhismi maayo inaynu sharciga ka baydhnay inaynu waddooyin qalada marno ku dhismi maayo inaynu madaxda dulmino oo waxaanay samayn aynu ku dulmino inaynu meel sare ah waxaan laga wadaa waxa wanaagsan inaynu fahanno kulligeen maxaafid iyo mucaaridba mas'uuliyadda inaga saaran ummaddan horumarkeeda iyo dhismaheeda ayaa wanaagsan sharciga oo aynu haddaanu jirin la samayno wasaaraddan iyo kuwa kaleba wixii sharciga ka dhiman hawsha ay wadaan inay sameeyaan baa loo baahan yahay oo ay wixii siyaasadee aan baarlamaan u baahnayn ay samaystaan wixii sharciga kalena ay u gudbiyaan si aan la isugu qabsan oo qofku ogaado sharciga uu jabinayo TV-gu haddaanu sharcigu hadduu soo saari waayo khudbadda madaxweynaha masalan halkay ku qorantay waa la xidhayaa waa in marka hore jirtaa uu garanayaa inuu dembi geliyo hadduu taa samayn waayo hadduu maalinta qaranka ka soo qayb geli waayo waa inay meel ku qoran tahay oo heshiis ku galay ama ay sharci tahay hadduu ka soo qayb geli waayo inuu dembi galay laakiin ma noqonayso in la yidhaahdo uu maqnaa uun ama soo muudaynine liisanka ka qaado waxa kaloo aan intaa ku raacinayaa dad aan reer Somaliland ahayn ayaa dalkan aynu ugu baahnaa inay maalgashi sameeyaan inay noo yimaadaan shaqo abuur sameeyaan waa ogtihiin dhammaanteen waynu ognahay shaqo la'aanta ka jirta dalka iyo dhaqaalaheenu inaanu inagu filayn wuxuu ku dhismaa dal oo uu Mareykan ka maarmi waayay
oo China ka maarweyd oo German ka maarweyd oo Europe ka maarweyd inay dibadda uga yeedhato hanti iyo maal dad sita oo jira waddanka iyaga gashada waxa muhiim ah dadka aan reer Soomaaliland ahayn aynu inoo yimi inay maal gashadaan dalka sharciga maraya sharci darro cidna ma saamaxdo sharciga ku shaqeynaya ummadda shaqaalaysiinaya sharcigeena ku taagan waxa loo baahan yahay in la ilaaliyo inaan loo eegin halku ka yimi inaan dareenka lagu xukumin oon tuhun loo qaadin mar hadduu halkaaba ka yimi waxaas uu uga jeeday waxa waa in la garanayaa wuxuu qaldayna waxay yihiin inay sharci ku fadhiyaan wuxuu saxayna ay sharci ku fadhiyaan weliba soo dhaweyn bay mudan yihiin dadka maalgashiga guud ahaan ugu baaqaynaa in dadka dhageysanaya dalkan diyaar loo yahay inay maalgashi gashadaan ay yimaadaan dal nabadgelyo yahay lana fahmo dal yar oo weli qabiya ah oo waxyaabo qabiya ay jiraan inuu yahay inaan xumaan kale jirin waan soo dhaweynaynaa gacmo furmo dadka maalgashiga wada ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay wixii qabiya dhimanna mas'uuliyadda si loo kala leeyahay loo kala qaado aan si isugu tagno waddanku wuxuu noogu dhismayaa wadajir iyo caqli iyo wanaag noogu dhismi maayo digdig iyo hanjabaad iyo xarig dhinac u socdo iyo meel ka socdo iyo sharci loo cuskaday iyo distorjabin inta ay noogu dhismi maayo Cabdiraxiin Muuli Ismaaciil shabakada wararka Ilays News magaalada Hargeysa